sidee ayaa uu doolarka Mareykanku ku noqday lacagta ugu awoodda badan suuqyada caalamka? Magaca ama haybta Mareykanka in adduunka uu ka noqdo mid la wada yaqaano waxa sabab u ah lacagta doolarka Mareykanka taasoo 3.6% dhaqdhaqaaqyada suuqyada adduunka loo adeegsado si weyn. Sooyaal ahaan doolarka Mareykanka waxa la sameeyay sanadkii 1792 waqtigaas doolarku ma ahayn lacag waraaqo ah balse waxa uu ka koobnaa 3 nooc oo kan ugu qaalisan uu yahay dahabka, kan ku xigana uu ahaa macdanta, halka kan ugu hooseeyana uu ahaa qalinka. nidaamkan ku salaysan kala sarreynta maaliyadeed waxa uu Mareykanku ka socday ilaa laga gaaro sanadkii 1861 waqtigaasi oo dagaalkii sokeeye ka qarxay Mareykanka. dagaalkaasi oo laga dhaxlay in la abuuro lacag waraaqo ah taasoo daabacadeeda la bilaabay sanadkii 1862. dhamaadkii dagaalkii sokeeye ee Mareykanka waxa la daabacay lacag gaaraysa $461 milyan oo Mareykanka ah. sanadkii 1879 waxa dalkaasi Mareykanka ka dhacay sicir barar keenay in doolarka Mareykanku ay qayb weyn ka lunto qiimihiisii, waxaana waqtigaas lagu fakiray in lacagta doolarka ah lagu dahaaro dahab, taasoo hoos u dhigtay sicir bararkii dibna u soo nooleysay dhaqaalihii dalka iyo qiimihii lacagta doolarka. sanadkii 1929 waxa markale dalkaasi ka dhacay dhibaatooyin dhaqaale oo sanado badan socday, taasoo ku kaliftay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Franklin Roosevelt inuu baabi'iyo dahaarkii dahabka ee doolarka, balse waxa uu markale dib u soo celiyay sanadkii 1934. intuu Mareykanku uusan ku guuleysan dagaalkii adduunka waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo sidii uu abuuri lahaa nidaam dhaqaale oo caalami ah kaasoo lacagta doolarka Mareykanku uu noqonayo halbeeg kadib heshiiskii Bretton Woods ee dhacay sanadkii 1944. heshiiskaasi waxa ka soo qayb galay 44 dawladood, waxaana shirkaasi uu socday 22 maalmood. halkaas ayaana lagu kala saxiixday heshiisyo lagu xakameynayo ganacsiga caalamiga ah iyo in doolarka Mareykanku uu halbeeg u noqdo dhaqaalaha caalamka iyo qiimaha lacagaha dalalka kale. heshiiskan ayaa sidoo kale keenay in la sameeyo nidaamka sarifka lacagaha qalaad, waana heshiiskii ugu weynaa ee dhidibada u taagay mudnaanta doolarka Mareykanka. Mareykanku markii uu la dagaalamay Vietnam sanadkii 1956 ilaa sanadkii 1975 waxa uu u baahday lacag doolar ah oo dheeraad ah si uu u kaabo dhaawacii dhaqaale ee soo gaaray xilligaasi. waqtigaasi kuma filnayn lacagta uu haystay lamana daabici karin doolar cusub, sababtoo ah waxa meesha ka baxay dahabkii gundhiga u ahaa doolarka. waxa la ogaaday in dalka Faransiiska uu yahay dalka kaliya ee heli kara lacag badan oo doolar ah, balse Faransiiska ayaa go'aansaday in $190 milyan oo doolar oo taalay bangiga dhexe loo bedelo dahab, taasi oo keentay Mareykanku uu awoodi waayo in lacagahaasi doolarka ah uu bedelo dahab. waxayna taasi qasabtay in madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon uu soo saaro bayaan sanadkii 1973 isagoo gabi ahaanba meesha ka saaray in doolarka Mareykanka lagu bedesho dahab. dahabka ayaa sidaasi ku noqday mid xor ah oo aanay jirin cid si gaar ah u maamusha, waxaana wada qura wada maray wax kasta oo magaca lacag sheegta oo doolarku uu ka mid yahay. dhammaantoodna waxay noqdeen lacago waraaqo ah oo qiimo kala duwan dunida ku fadhiya. qiimaha doolarka ayaa 40 jeer hoos uga dhacay laga bilaabo sanadkii 1973 ilaa iyo hadda. Mareykanku markuu wax soo dejinayo iyo markuu wax dhoofinayaba lacagaha uu adeegsado waa doolar, waana tan abuurtay in lacagta Mareykanku ay gaarto wadamo badan oo caalamka ah. tusaale ahaan dalka Japan waxa lagu leeyahay deymo gaaraya 18%, halka deymaha Mareykanka lagu leeyahayna ay gaarayaan 33%. inkasta oo ay tahay deynta lagu leeyahay Japan, haddana way ka khatar badan tahay marka loo eego tan Mareykanka, waayo dalalka deymaha ku leh Japan ma doonayaan inay qaataan yaanka Japan, halka kuwa Mareykanka deymaha ku lehna ay ku hasban yihiin inay qaataan lacagta doolarka oo Mareykanku uu adeegsado. Mareykanku waxa uu ku jira hoos u dhac ganacsi ku dhawaad 30 sano, taasina waxay kor u qaaday qiimaha doolarka caalamka. dhaqaaliyahanada caalamka ayaa isku raacay intooda badan in bangiga dhexe ee Mareykanku uu yahay kan haysta kaydka dahabka ee ugu weyn adduunka, waxaana la sheegay inuu haysto dahab gaaraya 8,130 tan. baaxadda kaydka dahabka Mareykanka ayaa mar kale ka qayb qaatay kor u qaadida kalsoonida lagu qabo doolarka Mareykanka, maadaama uu yahay lacagta ugu badan ee dahabka lagu daboolo. dhanka kale, wadamada caalamka intooda badan miisaaniyadda sanadlaha ah ee ay dalalkooda u dejiyaan waxay ku saleeyaan doolarka Mareykanka, taas oo mar kale maqaam dheeri ah u yeelaysa haybadda lacagta Mareykanka.